maanta shucuubteena iyo farxadeena lama soo koobi karo waxa joognaa sanado badan kadib ayadoo dib loo aasaasay dib loo suray halgamayaashii Soomaaliyeed ee dhiigooda u huray inay naftooda ku waayaan oo ay arkaan Soomaaliya xor ah hadda waxaan taganahay SOL oo la ogyahay inay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo is aruursaday Soomaalinimo ku buhoobay isu yimiday tashaday inay ka baxaan gumeysiga oo ay xor noqdaan hadda waxa ka nimid Xawtaako oo loo yaqaan hooyadii xornimada Xawtaako waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed ayadoo uur leh taariikhda ayaa waxa lagu dilay falaar ayadoo marka u arkaysay inay dhiigeeda iyo nafteeda u horto inay mar arto Soomaaliya nabadan hadda dalkeena sidii hore ma aha inkastoo aan qaran nahay laakiin awoodii hore oo lagu yaqaan Soomaaliya xoogaa waxa muddo inaysan ahayn laakiin adinkaas annaga soo celi kara iyo adinka inta nool ninkastoo Soomaaliya ka geesto hal talaabo oo wanaagane sidii maanta kale ayaa loo dabaaldegayaa omaadeen marka waxa calan iyo dal jira nahay laakiin dhibta dal kasta waxa ka saari kara dadkiisa ayaa macnaa marka Soomaali baa leh qabiil iyo quran wax tari maayo annagoo Soomaali ah qabyaaladii waa ku daalnay waa ku baabanay waa ku aafownay in Soomaaliya la kala qobqobo oo qoloba calan gooni qaadato oo aan isku macnaha marweyno ayaa la gaaray sabab la'aan hal qoysaan nahay hal qabiilaan nahay hal dadaan nahay hal diinaan nahay hal ummadaan nahay hal dalbaan nahay marka ka dhidhiya kuwa dariskeena naga badan oo qoomiyadaha isku macnaha tagay ah oo kala afka ah oo kala diinta ah ayaa hal calan wato annagoo Soomaaliya hal qoys ah in nala qeybiyo annagana ayelno diida Soomaali u diida ceeb